Somali Star TV. Vi sänder måndag klockan 16:00 i Stockholms största lokal TV i Sverige. Abdi Katir heter jag, programledare i Somali Star TV. Om man missar programmet man kan titta på www.omnakanalen.se/Stockholm och www.iran.com, www.elbur.com, eller man kan titta på Google direkt. Man kan skriva Somali Star, sen man kan titta på webben. markalan kusoo dhawaada barnaamijkeenii afka Soomaaliga ayaa noo bilaabnay saacada 4 kalena ayaa naga daawataan hawada ka soo galnaa magaalada Stockholm cariga Sweden ayaa barnaamij soo siideynayna barnaamijkan sidiisaba barnaamijka qayb badan ay isugu jira dhinaca marwalba waxaan ka hadalnaa isdhexgalka dhinaca dhaqanka dhinaca kulturka dhinaca sportiga ama ciyaaraha idroodska iyo waxaan ka hadalnaa markii halkan booqasho noogu yimaadaan ufuuda ka socoto waddankeena iyo hay'adaha waddankan madaxdooda waa la kulanaa marka barnaamijka maanta wuxuu ku saabsan yahay qaybta hore waxaan wareysanaynaa oo booqasho halkan ku yimi safiirka u fadhiya dowladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliyeed Mr. Ali Qaasim isla markaa Finland u fadhiya aragaas iyo Finland isla markaana wakiil u ah Scandinavian-ka wadamadan kale hadaan ku noolnahay oo Scandinavian-ka loo yaqaan sida Sweden iyo Norway Denmark iyo Iceland ayuu intaas ayuu wakiil ka yahay safiirka marka waxaan nasiib u yeelanay in maanta halkan noogu yimaado Stockholm aan wareysi ka qaadno marka hore waxaan jeclahay in wasiirka aan ku soo dhaweeyo safiirka aan ku soo dhaweeyo barnaamijka uu isku kimbarsataan Ali ku soo dhaweeyo bismillaahir rahmaanir rahiim runtii aad baan kaaga mahad celinayaa maaragtay fursadan qaaliga aad siisay maaragtay waan ku faraxsanaynaa saaragno oo aan halkan salaan aga jeediyo dadweynaha ku nool dalkan Sweden runtii waxaan oran lahaa dawladda Soomaaliyeed waa dawlad maaragtay doonaysa in qarannimadii sharaftii Soomaaliyeed dib u soo celiso marka meel walba dad Soomaaliyeed joogaan maaragtay waxa la doonayaa in Soomaalida ay noqoto maaragtay isku xiran dad isjecel dad Soomaalinimadii la arki jiray maaragtay marka runtii waan aad baan kaaga mahad celinayaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Jaale Safiir marka hore ujeedada booqashada halkan Sweden loo tataabay booqashadeeda waxay ku saabsan tahay booqasho shaqo gaaban oo halkan aan ku imi anoo maaragtay diyaar garayn adigu waxaan rajaynaynaa insha Allah inay laba wafdi noogu yimaadaan dalalkan Nordiga la isku yiraahdo adigu Finland Norway iyo Sweden saddexdaas dal inay booqasho ku yimaadaan madax sare marka gobol xaarid ayaa iyagu weyn arrintan oo iminaan gobol xaaro maaragtay fiidaas imaanaya sidaa baan u imi marka si fiican bay hawshan igu hagaagtay dadkii muhiimka waa la kulmay insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo adiga bilaha soo socda October September insha Allah wadiyadaas way soo gaari doonaan marka si fiican bay igu hagaagtay safaarado badan oo la kulmay oo maaragtay dadka muslimiinta ka soo jeeda marka runtii aad baan ugu faraxsanahay si fiican oo la inuu nagu socdo ka waran arigaas Finland markii maartay intaan safiirnimada aad lagu soo magacaabay kulan loo qabatay Soomaalida oo aad runtii kulankii noogu horreeyay waa ka wada dhul maalintii xornimada Soomaaliyeed dad badan oo Soomaaliyeed baa isugu yimi si fiican baan wada hadalnay waan u gudbiyay fariintii maaragtay magaca Soomaaliyeed doonaysa inay u gudbiyaan wixii fariin aan anigu dhinacayga ka gudbin karno aan u gudbiyay runtii Soomaalida Finland joogta waa Soomaali runtii aad isugu xiran oo aad isu jecel si fiican oo soo dhaweeyeen waxay yiraahdeen anagu hadda markii hore ba dawladnimo wax loo baahan yahay mar walba qof walba Soomaali u baahan yahay marka runtii dad aad ugu faraxsan way anaguna waxayna hadda bilow hadda Finland hadda hawsheeda bilow way wali hadda la wada waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay maartay nagu guulo haduu Ilaahay yiraahdo kulli halkan wadamadan hadda wakiilka u tahay maartay safiirka Soomaaliyeed dawladda ku meel gaarka mas'uul iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan maxaa maartay qorshe ah oo talagal ah dadkan ku nool qurbaha ama diasporada ay u talagashay dawladda wallahi saad og tahayba diaspora ama dadka dibadda degan dadka Soomaaliyeed waxaad garan karaysaa inay muhiimad weyn leeyihiin waxyaalaha kamid ah inay muhiimad weyn leeyihiin waxa kamid ah sanadkii waxa la qiyaasaa inay 900 milyan oo dollar u diraan dalka macnaha taas waxay ku sheegaysaa dhaqaalahan waa arrin culus weey midda labaad dhaqan ahaan in dadka maaragtay dhaqankooda ay haystaan qorshaha ugu weyn ee dawladdu ay rabto inay dadka u fuliso waxa kamid ah in dadka Soomaaliyeed ay noqdaan dad isku xiran dad walaalo ah dad dhaqankooda ilaalsada dad maalintooda xornimada maaragtay
ayagoo isku duuban yimaada dad maaragtay hela muwaasalaadka ama maaragtay waxyaalaha ay dawladdu qaban karto in qofkii uu laba baasaboor haysan karo baasaboor Swedish mid Soomaali ah maaragtay dalkiisa uu xor u yahay dalkiisa waqtigu rabo tagi karo macnaha dadaal sidaas oo kale in midda kale dhibaatooyinka ugu weyn waxaa ka mid in caruurta waxaa dareemaysa mararka qaar caruurta inaysan garanaynin Soomaaliyiin in maaragtay la baro cunuga inuu Soomaali yahay luqadiisa la baro dhaqankiisa la baro uu ku faraxsanaado asoo Soomaaliya ha ahaato dal faqriya laakiin Soomaalinimada inuu ku faraxsanaataa ku faantaa Soomaalinimada marka qorshooyinka ay dawladda leedahay waxaa ka mid ah in maaragtay dhaqanka siyaasadda dhaqaalaha waxaas oo dhan laga midayo ummadda dibadda degan oo dhan marka Nordic dalalkan afartan dal oo maaragtay Nordic ah waliba annagu afartaas dal Iceland hadda kuma jirto waxba Soomaali badan ma degana laakiin afartan dal oo kale Denmark Norway Sweden iyo Finland dawladda waxay siinaysaa maaragtay si qaas ah ay weegaysaa sababta keentana waxa dad badan baa degan waxa kaloo la yiraahdaa bariyahan dambe dawladda Sweden inay bala tartamayso maaragtay dawladda Talyaaniga marka taas waxay ku dareensiin kartaa in aad loo xiiseynayo maaragtay dawladda Sweden oo kale hawlaha wado lana rajaynayo insha Allah inay wax weyn la qabto dawladda marka waxaan rajaynayaa insha Allah dadka Soomaaliyeed ayaguna maaragtay inay ka baxaan maaragtay waxyaalaha yaryar ee hoostooda ay gudbaan qarannimo maaragtay 17 sano waa la soo dhibanaa maanta waa laga gudbay insha Allah dawladana hadda waxa laga sugayaa weelata inay keensan doonto in qofka muwaadinka ah wax walba u baahan la qabto waxa kamid ah haddii qof Soomaaliyeed ay dhibaato ku dhacdo kale inay dawladda u timaado ay wax ka qabato waxaan rajaynayaa in Sweden loo soo magacaabi doono safiir sida ugu dhaqsaha badan Norway waxaa jooga honorary consular already waa jooga marka Finland ana jooga marka Moscow waxaa jooga maaragtay safiir asagana aad u shaqeeyo la shaqeeyo dalalka marka ma sha Allah waxaan oran karaa dawlad aad umadu mar walba dawladeeda u baahan tahay dawladdan umadeeda u baahan tahay marka waxaan rajaynayaa kulli shirkadu heshiisiin hadda socda saan socono ka waran rajadiisa wallahi ka dawlad ahaan anagu waxaan aaminsanahay in Google la fidiyo mar walba dhaqanka Soomaaliyeed garanaysa qof markuu Google fidiyo waa la tagaa Google-sha dawladda Google-shi waa fidisay guddi madax bannaan ba maamuusay shirka waxaana la filayaa insha Allah inay waxyaalo aad wanaagsan ay ka soo baxaan waxyaalahaas oo in la isafgarto macnaha ummaddu waxa muhiim ah ummadda Soomaaliyeed inay fahmaan in la isu tanaasulo marka waxaan rajaynaynaa shirkan inuu noqdo mid la isugu tanaasulo la isugu dulqaato maaragtay la isfahmo dalka iyo maaragtay dadka iyo diintaana la xafito taasaan rajaynaynaa rajadu aad bay u weyn tahay waa garan karaysaa hawsha loo galay waa garan karaysaa dhibaatooyinka socda waa garan karaysaa in la weeraray oo la leeyahay ma garanaysaa waa qalad waa saad marka laakiin anagu waxaan leenahay dawladda inay usoo xulduubto in ummadda maaragtay lagu soo dabaalo maaragtay walaaltinimo iyo qarannimo ma dhahayo dawladda wax walba 100% perfect way dawladdu waa ma garanaysaa aniga dawladda qof walba maaragtay marka khalad waa dhici karaa laakiin anigu waxaan oran karaa markii Google la dhigo macnaheedu waxay tahay in wanaag laga filayo Google-shaas insha Allah dhaqanka Soomaaliyeedna weligeed saas waa marka Google-shaas waxaan ka rajaynayaa inuu wax wanaagsan ka soo baxo ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Jaale Safiir maadaama hadda dhinaca dawladda representative uga tahay oo safiir u tahay Soomaalida rajo intee ayaa gelin kartaa dadweynaha ku nool Scandinavian-ka maxaase kula dardaarmi lahayd dadweynaha maanta ka daawanaya dhinaca maaragtay horumarka la gaaray dhinaca teknolojiyadda internetka iyo kan geela la jiraba oo waddankeena jooga iyo kuwan ku nool waddankan waxaan kula dardaarmi lahaa runtii in Soomaalinimada loo soo dhaafto Soomaalinimada la adkeeyo in qarannimo la raadiyo in maaragtay meel walba joogto maaragtay inaad wax ka noqoto maaragtay inaad waxbarashada ku horumarto dhaqan ku horumarto siyaasadda ka qayb gasho wadada isku duuban oo meel walba wax ka noqdo waad garan karaysaa Scandinavian-ka ama Nordic dalka dadka degan bulsho walba hadday isku duuban tahay ay leadership leedahay ay ma garanaysaa waxbarashada ku dadaasho dhaqankeeda ku dadaasho waxbay ka noqon kartaa bulshadaasi marka taasaan kula dardaarmi lahaa kan geljiraan waxaan kula dardaarmi lahaa maaragtay inuu dhaqankii adkeeyo mar walbana qarannimadii adkeeyo marka runtii waxaan garan karnaa inaan naga dhuntaano qarannimada qarannimada inaan soo ceshano qof walba Soomaaliya inuu ka shaqeeyo marka Soomaalida waxa kale oo dabacda aan leenahay qofka walaalkaayo oo ka fikir doonaan kara mise walaasha fikradeeda inaad ku nacdo maaha waa inaad dhagaysataa ma garanaysaa fikradeeda ku qiimaysaa at the same time laakiin aad ka midaysnaadaan maaragtay wadaninimada iyo in wadaninimada la dhooro maaragtay qof gooni u leh male qof walba Soomaaliyeed oo qaranna ma garanaysaa waa qaran in qarannimada la soo celiyo oo taa loo soo xuduubayaan anigu dadku la dardaarmaya
dadkuna ay noqdaan dad isjecel diintoodana haysta diintoodana ma garanaysaa ku adkaado diinta wax ugu muhiimsan badanaa carabtu waxay tidhaahdaa ma garanaysaa diintaa kow ah kadibna waa inaad dal heshaa meelaad ku caabudo ma garanaysaa dadka soomaaliya joogana hadda dalkoodii waa inay insha allah nabadeeyaan kuwa dibadda ku noolna haddee waa inay meesha ku noolyihiin ka muuqdaan saasaan kula dardaarmaa dadka kulley waxaan jecel lahay booqashada dambe marka halka noogu imaato Stockholm inaan maaragtay stuudiyaha kugu casuno oo markaasna dadweynaha aan chance siino si ay telefoonka ugu soo diraan oo barnaamij live aan ku qabanno guul baan ku rajaynaynaa iyo horumar waana mahadsantahay aad baad mahadsantahay guul baan idinkala saas ku leeyahay السلام عليكم ولي برنامجنا بتاعت الرأس سومالي ستار تي في نقدر نسان ساعات أفرت كلونيمو مالو بسنينة عياري سبورت كي أنا صعود مالتي أفرت وانك بيش أي بلادين أو كسيكو ورسيا يعني كخدنا عيار جيد يو توبرياش هذا يو دت كسو غير قلبه هل كان عداء سبورتيك سوماليات مستر